run ahaantii bini'aadamku awood uma laha in uu arko dhiig amase qof kala dilaya. Maskaxda qofka bini'aadamku uma dulqaadan karto inay aragto waxyaabahaas oo kale. Iyadoo ay saa tahay, waxaa jira dad fara badan oo caadaystay inay dadka dilaan amase ay noqdaanba dilaaga adduunka ugu khatarta badan uguna cabsida iyo halista badan, oo agtooda waxan waxbaba kama noqonayaan. Waa qisadii ninkii dhakhtarka ahaa ee dili jiray bukaankiisa. Charles waxaa loo bixiyey malagii dhimashada badnaa. Daawade qisada naxdinta iyo cabsida badan leh. Haddii aad rabtid in aad dhammaystiratid, fadlan muuqaalkan marka hore like saar, siina shargare adigoo asxaabtaada la wadaagaya. Waa anigoo ah Nadira Siciid. Charles Cullen waxa uu galay taariikhda Amerika. Waxa uu ka mid noqday dilayaasha ugu dadka faraha badan la soo dilay uguna khatarsan ee welibana maskax isticmaalay. Charles waxa uu dhashay 1960kii, isagoo 7 bilood oo keliya jira ayuu aabihiina dhintay. Charles aabihii waxa uu ahaa darawal basle ah. Kadib Charles markii uu dhashay isagoo 7 bilood oo keliya jira ayuu aabihiina dhintay. Charles waxa uu la dhashay 7 caruura oo uu isagu 8 ku yahay. 2 ka mid ah waa ay dhinteen markii ay noqdeen da'da qaangaadhka. Charles hooyadii waxay ahayd guri joog oo wax shaqo ah maysan haynin. Waxa ay ku noolaayeen nolol aad iyo aad u liidata. Charles niyadjab badan ayaa ka haysatay dhanka nolosha. Gurigooda waxaa ka jiray dagaal iyo buuq fara badan oo u dhaxeeya hooyada iyo welibana carruurta ay walaalaha yihiin. Charles waxay ahaayeen dad aan ku qanacsanayn nolosha liidata ee ay ku nool yihiin. Sida oo kale Charles waxa uu dhibaato kala kulmi jiray carruurta iskuulka oo caayi jiray markasta. Waxa uu ahaa mid ku nool murugo fara badan iyo nolol aad iyo aad u xun, diiqadna wadata. Noloshiisu waxay sidaa ahaataba waxa uu qorshaystay dilkiisii ugu horeeyay oo uu ku dilayo naftiisa. Charles waxa uu isku dayay in uu isa soo daldalo isagoo 12 jira, laakiin way u suuroobi weyday arrinkaasi. Dilkaas uu ku doonayay in uu nafta isku dhaafiyo Charles may noqonin mid u suura gasha. Haddana waxa dhimatay hooyadii oo ku dhimatay shil gaadhi. Shilka gaadhina waxaa ka dambeeyay 2 ka mid ah oo ay walaalo yihiin Charles. Arrinkaas waxa uu noqday mid kale oo niyadjab fara badan ku sii abuura. Waxaanu ka tegay iskuulkii. Kadib waxa uu ka mid noqday oo uu isqoray ciidamada badda ee Mareykanka oo wuxuu shaqo ka helay USS oo ah markab gujisa kuna hubaysan gantaalada. Halkaas ayuu shaqo ka helay. Aakhirkiina waxa uu noqday sarkaal haysta 3 xidigood. Laakiin Charles muu ahayn mid ku qanacsan shaqadan. Waxa uu jeclaysan jiray dhakhtarka jooga markabkan in uu ka caawiyo talaalada iyo welibana in uu marun xidho goonka cad iyo galoofiskeeda buluuga ah. Charles markasta waxa uu ka ag muuqan jiray dhakhtarka isagoo ku leh aan ku caawiyo. Ugu dambayna sidaa kuwa bartay caafimaadkii oo uu xaggaa ka soo bartay. Waxa uu ku hamiyi jiray mar uun inuu ka baxo markabkan oo uu ku shaqaysto sida dhakhtar caafimaadka oo kale ah. Ugu dambayn uu ka soo baxay oo waxa loo soo wareejiyey dhankaas buurta New Jersey oo uu ka dhiganayay caafimaadka. Charles waxa ay isbarteen gabadh, kadib waa uu guursaday, waxayna dhashay 2 hablood. 1988kii waxa uu helay shaqadiisii ugu horeysay isagoo ku shaqayn doona neeras caafimaad. Waa shaqadiisii ugu horeysay. Waxa uuna bartaa ka bilaabay dilalkii uu u geystay 40 qof oo uu afkiisa ka qirtay. Welibana waxa ka badan boqolaalka kale ee qof uu dilay ee welibana uu ilaaway. Charles waa mid ka xanuunsanaya xagga maskaxda iyo dhimirka, laakiin cid og amase cid ka war haysa ninkan inuu yahay nin xanuunsanaya maba jirtaba. wax loo maleeyaa inuu yahay qof caafimaad qaba. Waxa uu shaqadiisii ugu horeysay ka bilaabay xarunta caafimaadka ee isbitaalka ST, qaybta gubashada bukaanka ee emergency-ga. Inta uu shaqadan ku jiray welibana isbitaalka cid dareentay amase ka shakiday ninkan maysan jirin. Waxaa ku badatay isbitaalkan dhimashadii oo kor u kacday. Qof kasta oo bukaanoo la keenana kamuu baxaynin isbitaalka oo uu ku dhimanayay. Isbitaalkii waxa uu noqday mid dadka ku dhimanaya ay aad iyo aad u farbateen, marba marka ka dambaysana ay kor u sii kacayeen. Run ahaantii dhakhaatiirtu aad ayay u yaabeen, waxaana isweydiiyeen talow maxaa sababay dhimashadan intan la eg. Talow maxaa sababay? Waa ay isweydiiyeen, laakiin cidi way garan weyday.
muddo kadib dhakhaatiirtii iyo welibana neerastii kale ka shaqaynaysay dhakhtarkan ayaa u bogi weyday ninkan habdhaqankiisa iyo siduu u dhaqmayo. Charles waxa ay ka arkeen dayacnaan fara badan iyo welibana habdhaqan aad iyo aad u xun oo dadkiiba way isfahmi waayeen, taas oo shaqadii looga eriyey. Shaqadiisii koowaad sidaas ayaa lagaga soo eriyey, laakiin muu noqonin mid bartaa ku fadhiistay ee wuxuu diidayey shaqo kale oo wuu helay isla markiiba. Haddana waxa uu bartaa kasii watay dilalkii uu ku dilayay bukaankiisa. Mid kastaba markuu arko inuu yahay qof xanuunsanaya ayaa waxa uu siin jiray irbad oo uu ugu mudi jiray faleebada ku xidhan qofka, taasoo isla markaba uu dhimanayo qofku. Charles aad buu ugu faraxsanaa ficilkan uu samaynayo, sababtoo ah waxa uu islahaa dadkan wada xanuunsanaya hal mar nafta wada dhaafi, oo isagu waxaabuu islahaaba yacni dadkan u raaxee oo nafta hal mar wada dhaafi. Ficilkaasna wuxuu la ahaa ficil qurux badan. haddana dhimashadii waxa ay noqotay mid xadka ka baxday. run ahaantii qof yacni caafimaad kaga baxay dhakhtarka maguu jirinba. waxaa la isweydiiyey weligeed dhimasho sidan oo kale ah isbitaalka kamay dhicine maxaa sababay talow. sidiisi lamida ninkan habdhaqankiisa lagamaba helinba, siduu ula dhaqmaya bukaanka iyo welibana neerasta ay wada shaqaynayaan. neerastii dhakhtarka ka shaqaynaysay mid ka mida ayaa wax dhacday ninkan in ay ka shakido oo ay baadhitaan fara badan iyo dabagal ku samayso. waxa ay ogaatay bukaan kasta oo ninkan loo xil saaro oo uu isagu u galo wuu dhimanayaa, kuwa kalena ma dhimanayaan. maxay ku dhacday? waxa ay ka gudbisay dacwad. waxa la xidhay 9 bilood kadib markii loo waayey wax caddayna ayaa la soo daayey. baadhitaan fara badan oo ay ku sameeyeen Charles waxa ay ku waayeen caddayn, waana iska soo daayeen. haddana shaqo kale ayuu daydayday, waa shaqadii saddexaad. Charles waxa uu helay shaqadiisii saddexaad, laakiin marba marka ka dambaysa waxa uu noqonayay mid xanuunka maskaxda uu ka qabo mid ku sii siyaada. waxa isbedelayay marba marka ka dambaysa siduu dadka ula dhaqmayo, oo xanuunkii dhimirka uu ka qabay waxa uu noqonayay marba marka ka dambaysa mid ku soo siyaada, dushiisana ka muuqda. Charles dhakhtarkan saddexaad uu ka shaqaynaya waxa uu noqday qaybtii uu ka fuliyey dhimashadii ugu faraxa badnayd. ugu dambayn waa la soo xidhay markan. baadhitaan fara badan oo lagu sameeyeyna waxa uu sheegay afkiisana ka qirtay in uu dilay 40 qof. waxaa dusha laga saaray dhammaanba 3 isbitaal uu ka soo shaqaynayay dadkii ku dhintay oo kumanaan kor u dhaafayey. dadka uu ilaaway inuu dilay inay kaba badan yihiinba 40kan uu afkiisa ka sheegay oo ay kumanaan kor u dhaafayso. markii la weydiiyey sababtaad san u samaynaysayna wuxuu yidhi anigu waxaaban ahaaba malagii dhimashada badnaa ee la diidayayey. run ahaantii anigu waxaan ahaa mid dadkan xanuunsanaya yacnii u naxariisanayo dhimasho ugu bedelayay xanuunkan. baadhitaan lagu sameeyey xagga caafimaadkiisa ayaa la ogaaday ninkani inuu yahayba isaga laftarkiisu mid xanuunsanaya oo xagga maskaxda xanuunka qaba. kadib Charles waxaa lagu xukumay xabsi daa'in oo waqti xaadirkan waxa uu ku jiraa xabsiga. daawade haddii aad nala daawanaysay ilaa iyo dhammaadka muuqaalkan waad ku mahadsan tahay. fadlan ha ka ilaawin muuqaalkan in aad like saarto, sidoo kalena asxaabtaada la wadaagtid qisadan cajiibka ah adigoo u sheergaraynaya.